Bismillah, awalan salaamu calaykum dhammaan ummadda muslimiinta ah meel walba aad joogtaan. Waxaan idin rajaynayaa caafimaad qab iyo bashbash iyo barwaaqo. Waa walaashiina Doctores Jiyaa iyo macluumaad ku saabsan caafimaadka. Walaalkayga qaaliga ah oo walaashayda qaaliga aheeday haddii tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channel YouTube-kayga fadlan subscribe saar, like saar. wixii fariimahana commentiga inoo wareeb kambalalkana fura si aad ula socoto mar walba muuqaalada aan soo gelino. Maanta mawduucii wuxuu quseeyaa bilowga nolosha ama wax soo saarka xubnaha taranka rag iyo dumar. Bilowga nolosha ama wax soo saarka xubnaha taranka ragga iyo dumarka waxa ay ku wada jiraan dormant oo micnaheedu tahay kuwa aan firfircooneyn. Dhisma ahaan waa kuwa jira, waa bilaa dhaqdhaqaaq, waana isku mid ragga iyo dumarka marka loo eego xilliga caruurnimada. Waayo ukunta iyo miinada ragga waa kuwa aan dhaqdhaqaaq lahayn xilliga caruurnimada. Ilma galeenka iyo naasaha waa kuwa aan horumarsanayn. Si kastaba ha ahaatee, isbedelo ayaa dhaca xilliga qaangaarnimada. Xilligaasna waxaa dhaqdhaqaaq bilaawa xubnaha taranka waxaana ka soo baxa timo. Sidoo kaleeto gabdhaha waxaa ka yimaada dhiig loo yaqaano caado. Haddaba caadada ugu horeysa ayaa loo yaqaanaa menstruation. Waxaana horumar sameeya minka isla markaana waxaa bilowda wareega dhiiga caadada. Ugxanta ama ukunta ayaa sameysa horumar taasoo muujinaysa in uu minku qaadi karo uur. Sidoo kaleeto caadada oo la waayo ayaa loo aaneyn karaa dhibaatooyinka ka yimaadaan cudurrada ku dhaca dumarka kuwaasoo waxyeeleeya xubnaha taranka ee dumarka. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channel-kayga ka mid noqo asxaabta ku xiran. Sharaf ayay ii tahay ku soo biirida aad igu soo biirtay. Subscribe saar, like saar. Wixii macluumaad ah commentiga inoogu reeb una sii share garee qaar ka mid.